dhammaan asxaabta nagala socota page-ka Facebook aynu ku leenahay ee wariye Catooshire sidoo kale waxaad nagala socon kartaa page-ka cusub ee Catooshire Jowhar ee Facebook aynu ku leenahay haddii aad YouTube isticmaasho waxaad nagala socon kartaa page-ka YouTube-ka aynu ku leenahay ee wariye Catooshire iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha Soomaaliya qodobada maanta aan soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona kulan xiiso badan oo shalay ka dhacay garoonka Casey Kumare ee xaafadda Horseed waxa uu dhaxmaray kooxaha Beeka iyo Diyeeshi Baratelli waxaan kaloo soo qaadan doonaa xiriirka kubadda cagta degmada Tanjoohar iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe oo macallimiin soo magacaabay wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ee magaalada Jowhar waa mar kale iyo ciyaaraha aan ku horeynay kooxda kubadda cagta Diyeeshi Baratelli ayaa la ciyaartay kooxda Beeko ciyaartooda oo ku soo ilaatay barbaro min hal gool ah labadaani kooxood ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyadoo ciyaartu ay mid aad xiisad iyo xamaasad badan u lahayd kooxda Diyeeshi Baratelli ayaa goolka la horeysay laakiin naadiga Beeko ayaa soo bareejeysay sidaasna ciyaartu waxa ku soo idlaatay barbaro min hal gool ah ciyaartaas ayaana ahayd mid ay taageerayaal aad u fara badan ay u soo daabasho tageen haddii aynu eegno shalaytu waxaa la magacaabay laba macallin oo kala duwan iyadoo xiriirka kubadda cagta degmada Tanjoohar uu magacaabay macallinka xulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada ayaa la magacaabay macallinka xulka degmada waxaa noqday Atarax halka macallimiinta xulka gobolka iyo ku-xigeenkiisa ay noqdeen Maxamed Sheekh Cumar Jini iyo Sheekh Saalax Mado oo loo yaqaan Bariina magacaabistan ayaa waxay imaanaysaa xilli sportiska degmada uu ahaa maalmihii u dambeeyay mid aad u sii dhacay iyadoo xiriirka ay sheegayaan in loo baahan yahay in sare loo soo qaado sportiska degmada gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo sidoo kale la filayo in dhawaan uu furmo tartankii xiisaha badnaa ee ka socday garoomada Casey Kumare ee Shongale Stadium fadlan haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro like share subscribe saar anigoo Catooshire ayaa inala socodsiinay farsamadu waa Yusli Maxamed Axmed intaan dib ku kulmi doona barnaamij kale mid ah sidaas iyo amaana Allah